waxaa ka jira caalamka faldambiyeedyo badan, laakiin faldambiyeedyada qaar ayaa lagu sifayn karaa qaar lala yaabo sababtoo ah waxay ka soo fuleen carruur qaarkood ayna weli qangaadhin. waxaynu soo qaadan doonaa qaar carruurtaas wax dishay ka mid ah. kow, Eric Smith 1993 markii ay da'diisu ahayd 13 jir wuxuu dilay wiil ay saaxiibo ahaayeen oo 4 jir ah. markii hore naqaska ayuu ku dhajiyey, kadibna dhagax weyn buu madaxa kaga dhuftay. waxaa lagu soo eedeeyey Eric Smith dil bareed ah, waxaana lagu xukumay 9 sano oo xadhig ah. 2. Josh Phillips waa nin Amerikaan ah 1999 markii ay da'diisu ahayd 14 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu dilay gabadh yar oo ay jar ahaayeen, da'deeduna ay ahayd 8 jir, waxaana la soo helay meydkeeda 7 cisho kadib markii la dilay ayadoo lagu qariyay meel ka mid ah gurigiisa, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. 3. Andrew Wars markay da'diisu ahayd 14 jir waxa uu go'aansaday inuu isdilo, wuxuuna soo qaatay baaskooladiisa, laakiin waqti yar kadib uu ka noqday go'aankiisii ahaa inuu isdilo, wuxuuna ku bedelay inuu dilo saaxiibadiisa la dhigtay iskuulka. wuxuu soo qaatay baaskooladiisii wuxuuna ku dilay mid ka mid ah saaxiibadiis, wuxuuna ku dhaawacay 2 kale iyo macalinkiisa. kadib markii la qabtay waxaa lagu xukumay 60 sano oo xadhig ah. 4. Lionel Ted waa ninka ugu yar ee Mareykanka lagu xukumo xabsi daa'im sababtoo ah 1999 markay da'diisu ahayd 12 sano wuxuu ku dilay gobolka Florida inan yar oo 6 sano jir ah. 5. Mary Bell 1968 markay da'deedu ahayd 11 sano waxa ay dishay 2 carruur, midkood uu ahaa 2 jir halka midda kalena uu ahaa 4 jir, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. 6. Amargate Saada waa dilaaga ugu yar caalamka, wuxuu jiraa 8 sano. dilkii ugu horreeyay uu sameeyey waxa uu dilay walaashii oo 6 bilood kaliya jirta, wuxuuna ku dhajiyay naqaska ilaa ay ka dhimatay. sidoo kale waxa uu dilay ina adeerkii oo jiray 2 sano, markii la baadhayna waxaa la ogaaday in uu dilay tiro intaa ka badan.